qofkan imaqleen xalal noqon laakiin waxa rabaa inaan codkiisa kor u qaado aniga hadda meesha aan imid la isoo sheegay dhibaatada fikirka dadan awal baa iyadoo dib lagu qaday oo wadadii tarbuunka imaanaysay oo istaraatiijiyada ahayd ee karneedka ahaanba oo annagana dib muddo lagu qaaday gudeeda iyo gaadiisheeda laakiin welina aan ku jirnay haddana maanta dhibaato kale oo dadka soo kordhay noqon lahayd adeeg isbitaalka waxbarashada kuwa gaar ahaan ilmaha yararka dhigtaan oo dugsiga hoose dhexe ilaa sare jaamacadaha iyo shirkadaha halkan ku yaallo iyo dadka caadiga guryahooda dhigano dhibaato soo ku taabtay hadda aniga waa lugeeyay ilaa waxaan tagay luuqa dadka markay ka baxaan xataa qof dhibkiisa laga qofqaysto marka dhibku waa soo arkay dhibkiina waa dareemayna anaga haddana noo soo sheegay haddana waa kaga imaanay إن شاء الله وحنكون ذلنا بغلطي بغلطي وحول بسيطة حاليا هذه نقول علم إن شاء الله وقتي يقول أخصي عبد ومالي حتى حرمي ودراسة حتى يكتب لنا حلنا بدي أقول هذا جملة ووقت أن نجحها في إن شاء الله تعالى نقول سأبني على أمام البلاد وحنا صار وإسلانا في أداء قابل سنة وقت على كل سفارة إلى اللي سفارة صارنا ولا حيلنا لكن أداء جرو إلى اللي حيلنا dhibkiina waa dareemaynaa waddadan muhiimkayga waa ognahay hadday arka noqon lahayd hadday bukaan noqon lahayd hadday deegaan noqon lahayd iyo haddii ay noqon lahayd qof caadi ah oo magaaladan soo booqo intaba waddadan xanuuna lagu haysa dhammaantiin maadaama xanuun ay lagu haysa insha allahu tacaala wax alla waxaa ka qaban kara waan ku xallin karna waxaa ogaataan idinka keliya xanuun dhashumaysa annaga waa kuwa wadajiraan u samaynaynaa annagoo isla soconaa kullina insha allahu tacaala laakiin waxaan inta ka sugaysa in deganaan la muujiyo nagu kalsoonaataan haddaan loo sheega waa imaanay wadajiraan waxaan nagu kalsoonaada insha allah dhibkiina dhibkeenna waa